waa Derek, tanna waa xaaskiisii Maria. si lamida lamaana kasta oo inaga mid ahba waxay weligood ku hamin jireen in ay mar uun iibsadaan guri qurux badan misna aad u weyn. Ugu dambeyn muddo kadib wixii ay shaqeeyaan misna ay dhabarka u xirteen si lacag badan ay ku sameeyaan lahaayeen ay rajadooda u rumooday iyagoo gurigan ku iibsaday lacagtan $1,300,000. Waxay dareemeen farxad aad u badan maadaama muddo dheer kadib ay xaqiijiyeen riyadooda iyo in ay yeesheen qasrigoodii jacaylka. Waxaana u soo sawirmayo kaliya maalmaha quruxda badan ee ay halkan ku qaadan doonaan. Maalinkii xigay waxay tageen gurigii si ay u soo indheeyaan balse waxay la kulmeen arrin ka argagixisay misna noloshooda idil bohol mugdi ah ku riday. Gurigan ma ahan mid aad adiguba jeclaysan lahayd in aad si free ah ku degto. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bishii June 2014 ninkan lagu magacaabo Derek Brothers iyo xaaskiisii Maria ayaa waxay guri cusub ka iibsadeen xaafadda Boulevard Westfield, New Jersey. Waxay sheegeen in ay ku hamin jireen weligooda oo ay riyadoodu ahayd guri noocan oo kala ah 6 qolna ka kooban. Waxay ku iibsadeen lacag dhan $1.3 milyan. 3 maalmood uun kadib markii ay heshiiskii iibsiga guriga wada gaareen oo ay waraaqihii dhan ay wada saxiixeen misna ay isku diyaarinayaan in gurigoodan cusub ay u guuraan ayaa reer Derek waxa boosadii guriga cusub loo soo dhigay waraaq ay ku qoran fariin. Waxaa qaybta sare warqadda ku qornaa ku socota iibsadayaasha cusub. Si caadi ah ay warqadii u fureen waxayna bilaabeen aqrinta fariintii ku qornayd oo sida tan u dhacaysay. dariska qaaliga ah ee soo degay guriga 657 Boulevard iyo ogolaada inaan idinku soo dhaweeyo xaafadan. Sideed halkan ku timaadeen? Ma gurigan ayaa idinku soo jiitay awoodiisa qarsoon? guriga 657 Boulevard wuxuu 10 sano ahaa arrin qusaysa qoyskayga oo muddo 110 sano ayaan daba taagnayn. Aniga la ii xil saaray in aan sugo misna aan daalacdo cidda xigta ee halkan soo degaysa. Aniga horteyda awowihii ayaa kor ka ogaan jiray 1920yadii. Asaga gadaashiina aabihii ayaa isha ku hayn jiray 1960yadii. hadeerna waa kalkaygii. horta ma ka warqabtaan taariikhda gurigan? Se maxaa halkan idin keenay? waan ogaan doonaa. yaanahay anigu waxaa jira boqolaal gawaari oo soo agmarta gurigan maalin kasta. waxaa laga yaabaa inaan midkoodu ahay. waxaad eegtaa dhammaan daaqadaha ku soo jeeda gurigan. waxaa laga yaabaa inaan midkood ahay. waxaad ka eegtaa daaqadaha badan ee gurigan dhammaan dadka maraya meeshaasi maalin kasta. waxaa laga yaabaa in aan ka mid ahay. Fariintii in ay halkan ku joogsato ayaa fiicnaan lahayd balse kuma joogsan oo waxaa kaloo lagu sheegay arrimo si qaas ah ugu saabsan reerkan. waxaad leedihiin caruur. waan arkay intaan tiirinayay waxay ila tahay inay 3 yihiin. ma waxaad rabtaan inaad gurigan ka buuxisaan dhiigga yaryarka ee aan codsaday? alle anigu ii fiicanaa midda. ma gurigiinii hore ayaa ciriiri ku soo noqday qoyskan sii koraya mise waxaad damacdeen in caruurtiina aad ii keentaan isla markii aan magacyadoodii soo ogaado waan u yeeri doonaa anigoo dhankayga u soo jeedanaya. waxaana fariintii lagu soo gabagabeeyey. soo dhawaada saaxiibayaal, xafladana inoo bilaaba. reerkii Derek aad ayay u argagaxeen. durbadiina waxay la xiriireen reerkii ay ka iibsadeen gurigan iyagoo weydiiyey waa maxay waxaan la sheegayo yaa gurigan kor ka daawada. John iyo Andrea oo iyagu ahaa milkiilayaasha hore ee gurigan waxay sheegeen ku dhawaad 23 sano oo ay gurigan ku noolaayeen in weligooda aan loo soo dirin fariin noocan oo kala ah marka laga reebo hal mar oo ay ahayd maalinkii ay gurigan ka iibiyeen Derek iyo Maria misna ay barabeen in ay ka guuraan oo ay u firaaqayaan guriga. 10 sano oo ay halkan degnaayeen weligoodii ma dareemin wax ka argagaxiya ama in uu jiro qof gurigoodii isha ku haya oo daawanaya. xitaa inta badan dhib uma arki jirin in habeenkii ay seexdaan iyagoon albaabada gurigan qufulin. inkastoo warqadda tan loo soo diray ay aad uga fajicisay haddana wax weyn oo kama soo qaadin oo durbadiiba way iska tuureen. Derek iyo Maria arrinka kan ma cajibin. reerkan waxay sheegayaan shaki weyn ayay ka qaadeen. durbadiiba waxay warqadii la aadeen dhanka iyo xaruntii booliiska iyagoo wargeliyey arrinkan hurdada u diiday misna gurigoodii cusub nacsiiyey. booliiskii ayaa arrinkii la wareegay waxayna dib ula xiriireen reerkii guriga laga gaday iyagoo su'aalo badan weydiiyey. sidoo kalena labada reer u sheegay in arrinkan ay qariyaan oo aynan cidna u sheegin qaas ahaan reeraha kale ee deriska ah oo xaafadaasi degnaa maadaama dadka laga shikinayo ay iyagu yihiin baaritaan la rabo in lagu sameeyo. muddo 2 isbuuc ah kadib Derek iyo reerkiisana aynan weli gurigoodii cusub u guurin ayaa haddana waxaa loo soo diray waraaq kale taa oo markan kasii fajac badan midii hore maadaama qoraaga uu soo raaciyey naaneysaha labada reer iyo taariikhdii dhalashada ee caruurtooda. waxayna u dhacaysay sida tan. mar kale ku soo dhawaada gurigiina cusub ee 657 Boulevard. shaqaaluhu aad bay u mashquulsanaayeen. waxaan kaloo daawanayay idinkoo soo dejinaya alaabihiina qaaska ah. se miyay ogaadeen waxa ku dhex jira derbiyada guriga? malaha waqti kadib ayay ogaan doonaan. sidoo kale waxaa la sii raaciyey gurigan 657 Boulevard waa meel walwal idinku beeraya si aad ugu soo guurtaan. waxaa laga joogaa
sannado aad u badan tan iyo markii dhiigga yaryarka ay xukumeen gurigan. wuxuu malaha ula jeedaa muddo badan ayaa ugu dambeysay carruur yaryar in ay gurigan ku noolaadaan oo maxaan ku dhahaa ay ku dhex ciyaaraan. aan sii wadano fariinta. horta miyaad soo ogaateen siraha ku qarsoon guriga? carruurta yaryarna miyay ku ciyaari doonaan basementiga hoose guriga, mise aad ayay uga cabsanayaan in keligood ay qaybta hoose tagaan? aniguba aad baan uga cabsan lahaa haddii aan ayagu ahaan lahaa. guriga intiisa kale aad bay uga fog tahay, khaasatan haddii aad idinku dabaqa sare aad joogtaan, marna ma maqli doontaan qayladooda iyo oohintooda. carruurtiina ma dabaqa sare ayay seexan doonaan mise dabaqa labaad? sayaa leh qolalka ku soo jeeda waddada. si dhaqsi leh ayaan u ogaan doonaa markaad soo degtaan. waxay kaloo ii fududaynaysaa inaan kala ogaado qofba meesha qolkiisa uu yahay, kadibna si fiican ayaan u dejisan doonaa qorshahayga. daaqad kasta iyo albaab kasta oo guriga ka mida waxay ii oggolaanayaan inaan idin daalacdo, misnaan idinla socdo meel kasta oo aad guriga ka joogtaan. yaan ahay anigu? waxaan ahay The Watcher, daawadaha gurigan. muddo 20 sano ah ayaana gacanta ku hayay guriga kan. reerka Johnna adinka ayay idinku soo wareejiyeen. waxaa la joogay xilligii ay isaga bixi lahaayeen. si degdeg ah ayayna idinkaga iibiyeen kadib markaan amray. dhowr jeer ayaan agmaraa gurigan maalin kasta. gurigan waa shaqadayda, waa noloshayda. haddeerna sidoo kale adinka waad ila mid tihiin. ku soo dhowaada miraha damiciina. damacdheerigu waa waxa halkan keenay qoyskii idinka horeeyey. kalkanna adinka ayay idin keentay. maalin wanaagsan. niyadda ku haaya in aan idin daalacanayo. haddii aan isweydiino siduu ku ogaaday in carruurta qayladooda aan laga maqlayn qaybta sare? hadalkiisa sooma eka yacni qof ka warhaya gurigan oo dhan. allahu aclam. sidoo kale waxaa derbiyada ku qarsoon ee uu sheegayo maxay noqon karaan? fariintan ma caddaynayso oo keliya in sababka shakhsigan uu u rabo macluumaadyada reerkan iyo qolalka ay kala seexan doonaan in ay tahay waxa u fududaynaya qorshaha uu rabo in reerkan uu ku dhibaateeyo, ee sidoo kale wuxuu ku caddaynayaa in carruurtan uu ka qaylisiin rabo, yacni dhibaato ba'an uu u geysan rabo. waxay kaloo ina tusaysaa in reerkii hore uu isaga ku amray in ay ka baxaan guriga, inkastoo reerkii hore ay diideen waxaasi oo ay sheegeen in danahooda gaarka ah ay isaga iibiyeen guriga. Derek iyo Maria waxay ka rajo dhigeen in gurigan ay u soo guuraan. sidoo kale marka ay soo booqanayaan xitaa carruurtooda horay uma soo wadi jirin, taa oo keentay in mar saddexaad fariin loo soo diro. fariin aad u gaaban balse ka sii argagax badan kuwii hore. idinmee xaggeed aadeen? guriga 657 Boulevard aad ayuu idinku xiiso qabaa. muddo wixii baaritaankii ay sii wadaan booliiska, misna ilaa haddeer ay la'yihiin caddeemo ku haga qofka warqadahan soo qoraya, ayaa Derek iyo Maria waxay go'aansadeen in gurigan ay iska iibiyaan. mar uun luqunta kala baxa mixnadan ayay isdhaheen, balse iibinta guriga ayaaba mushkilad kale ku noqotay maadaama sheekadii gurigan ay ku faaftay xaafadoo idil. qof kasta isku daya inuu iibsado waxaa loo sheegayay arrinkii. bal waa kay adigu yaa gadanayo guri waxaasi laga sheegay. xitaa Derek wuxuu isku dayay inuu maxkamad la koro reerkii John ee guriga ka iibiyey, maadaama aynan u sheegin warqadda loo soo diray waa ay khiyaaneen. balse markii la waayay caddeemo muujinaya in reerkii John ay been sheegayaan, dacwadii sida ayaa lagu burburiyey. sanad kadib waa 2015kii, Derek iyo Maria waxaa la soo xiriiray reer degnaa xaafadda uu gurigoodii cusbaa ku yeelay, iyagoo u soo bandhigay in gurigan ay kala bartaan oo qaybna ay iyagu degaan, qaybta kalena ay reerkan degaan. Derek aad ayuu ugu farxay. durbadii reerkii ay heshiis la gaareen, waxayna cayinteen maalinka ay guriga u soo wada guuri doonaan. maalmo yar uun kadib reerkii la heshiiyey Derek iyo Maria in ay guriga la qaybsan doonaan waxaa soo gaartay fariin. markii ay kala fureen warqaddii waxay u dhacaysay: haye saaxiibada qoyska Brothers. qoyska Brothersna waxaa loola jeedaa waa Derek iyo Maria. fariintii intaa uu keliya ayay ku ekeed, balse waxay ahayd digniin cad oo reerkan loo digaayo. durbadiina waxay la xiriireen Derek iyo Maria iyagoo u sheegay in ay qorshahooda ka noqdeen. macsalaamo ayay ku dhaheen. sanad kale ayaa ka soo wareegatay oo 2016 ayaa la gaaray. reerkii Derek mar kale waxay heleen qoys kale oo iyagu raba in ay gurigoo dhan ka ijaartaan, balse shardi ayay ku xireen haddii fariin kale ay soo gaarto in reerkaasi uu sida ugu dhaqsiyaha badan guriga uga bixi doono, heshiiskii ijaarkana la burburin doono. 2 isbuuc kadib markii reerkaasi ay soo degeen gurigii, waxaa loo soo dhigay fariin oo ku bilaabanaysa: caaqi Derek ahaayow iyo dhiladii xaaskiisa ahayd ee Maria. oho, sheekadu markan soo dhaweyntii iyo hadalkii macanaa kuma bilaawen. fariintii oo sii socota waxay u dhacaysay: gurigan wuxuu ka badbaaday isku day aad rabteen inaad ku bahdishaan, wuxuuna isaga hor istaagay quwaddiisa iyo caawinaad kaga timi ciidankiisa oo gaashaamay albaabadiisa. maxaa loola jeedaa hadalkan? aniguba ma fahmin. aan horay u socono oo qaybta dambe ee fariinta aan tagno. laga yaabee shil gaari ama dab idin qabsada, mise xanuun yar oo fudud oo jirkaydan kaga dhaca si aadan marnaba ka bogsoonin, balse maalinba maalinka kasii dambaysa uun idinkaga sii daraayo. laga yaabee xayawaanadiina rabaayada oo dhinta, ama qof aad jeceshihiin oo si kadisa ugu dhinta shil diyaarad.
gawaari ama mid mooto lafaha oo iska kinjajaba waxaad tihiin kuwa laga quursaday daawadihii ayaana guulaystay inkastoo fariintan ay tahay balanqaad bareer cad oo reerkaasi loogu balanqaadayo in dhibaato nooc kasta ah la marin doono marna maysan cabsi gelin dadkii cusbaa ee guriga kiristay waxayna ogolaadeen in gurigan ay sii degnaan doonaan kaliya haddii reer Derek ay gurigan ku xiraan kaamirooyin badan ugu dambeyn 3 sano kadib 2019 Derek iyo Maria waxay ku guuleysteen in ay iska iibiyaan gurigii iyagoo ku gaday lacag dhan $959,000 ku dhawaad $400,000 ay qasaareen sanadadaasi oo dhan wuxuu baaritaankii sii socdo marna gacanta laguma soo dhigin shaqsigii argagaxa ku beeray reerkii Derek balse waxaa jiray dad cadeemo badan lagu helay oo aadna looga shakiyay waxaana kamid ahaa wiil lagu naaneysay The Gamer habeenada kamida xili booliisku ay kor ka waardiinayeen gurigan saacaduna ay ku beegneed 5 saac habeenimo ayaa waxay arkeen gaari sida uu soo socday istaagay guriga hortiisa xabaar sida uu meeshaasi u taagnaa ayuu muddo kadib meeshii ka dhaqaaqay durbadiiba booliiska ayaa ka daba baxay oo gacanta ku soo dhigay gaarigii waxaana saarneed gabar da'yar ah oo degneed xaafad ka agdhow xaafada Boulevard ee gurigaasi uu ku yeelay balse wiil saaxiibkeed ah uu degnaa guri ka agdhow gurigii cusbaa ee Derek wixii baaritaano dambe baaris lagu sameeyaaba ugu dambeyn gabadhii ayaa booliiska u sheegtay in boyfriendigeeda uu ciyaaro geemyo yacni horor ah mid kamid ah geemyadaasina waxaa ku jira actor magaciisa la yiraahdo The Watcher daalacdaha inkastoo hadalkeeda uusan iga dhaadhicin gabadhii waxay tiri sheekadan markaan maqlay asaga ayaan uga shakiyay waxa fariimahaasi u soo diraya reerkan malaha wuxuu rabay oo kaliya si uu ugu maadaysto adigu wiilkii asna waa la xiriiray si loo su'aalo balse marna ma imaan xaruntii booliiska oo iska diiday maadaama cadeemo lagu waayayna sidii ayaa looga daba haray wiilkan yar oo kaliya ma ahanay waxa jiray nin kale oo isagana lagu magacaabo Michael Langford Michael wuxuu degnaa mid kamid ah guryaha ku dhagan gurigii cusbaa ee Derek ayaana booliiska ku dacweeyay ninkan isagoo sheegay maalin kadib markii loo soo diray warqadii koowaad in ninkan uu ku arkay meel lagu wada caweeyo misna uu ka yara shakiyay kadibna maalmo kadib uu xaafadiisaba ku arkay Michael iyo hooyadiisa waxay halkan degnaayeen laga soo bilaabo 1960kii hooyadiis waa waayeel oo 93 sano ay jirtaa haddii la eego waxay waafaqayaan taariikhda uu qoraagu ku soo qoray misna uu ku sheegay in asaga ka hor aabihiis uu gurigan daalacan jiray 1960yadii sidoo kale Michael aabihiisa wuxuu dhintay 12 sano ka hor inta Derek iyo Maria aynan gurigaasi iibsan midana waxay soo waafaqayaan marka qoraagu uu yiri ku dhawaad 10 sano aniga halkan mas'uulka ah inaan isha ku haayo Michael waxa kaloo lagu yaqiinay in jaarka uu cabsi gelin jiray isagoo muddo aad u dheer fiirinaya guryahooda mararka qaarna daaqadaha ka fiiriya adigu booliiska markuu kiiskaasi baaray misna Michael la su'aalay wuxuu iska diiday in waxyaabahaasi uu ku lug leeyahay ama uu ka warhayo mid kamid ah waraqii Derek loo soo diray marka la baaray waxa laga helay DNA-ga qof dumar ah isla markiiba waxay sheekada ku rogantay Michael walaashiisa oo aabi lagu magacaabay balse ugu dambeyn markii la baaray DNA-geeda iyo midkii waraqaha laga helay way islahaan waayeen waxaan niyadeeda ku soo dhacaya haddii ay DNA gabar ka heleen waraqaha maxay u baari waayeen DNA-ga gabadhii la soo qabtay habeen saq dhexe iyadoo guriga hor joogta kuna marmarsiyotay in saaxiibkeeda uu game yacni noocyadaas oo kala dheelayay nasiib daro lama baarin gabadhaasi anigu shaki weyn ayaanba ka qaba haddii ay barun tahay waxaan oo sida dad badan ay tilmaameen aynan ahayn been ay iska camirteen Derek iyo Maria sababtoo ah haddii taariikhda ciidan dib loo raacay waxa soo baxday in muddo sanado yar Derek iyo Maria ay guryo badan iibsadeen gurigoodii koowaad waxay ka bixiyeen $315,000 wax yar kadibna mid kale ayay gateen $700,000 haddana muddo yar kadib gurigan ayay ka bixiyeen $1,300,000 see macquul ku tahay reer aan hanti sida u badan lahayn in dhaqsiyahaasi gaaban ay guryo qiimahaasi jooga ku iibsadaan waxa loo badiyay in reerkan ay arin kala damacsanaayeen yacni laba qorshe midkood ay rabeen koow in reerkii ka gaday guriga ay maxkamad la aadaan misna lagu qasbo reerkaasi in ay hoos u dhigaan lacagaha ay guriga ku iibiyeen oo si raqiis ah ay ku gataan muddo kadibna qiimo badan ay ku iibiyaan wayna dhacday oo maxkamad ay reerkii la koreen balse kiiskoodii daaqada ayaa laga tuuray ama waxay rabeen sheekadan cabsida badan laysankeeda inay ka iibiyaan shirkadaha waaweyn ee filimada soo saara si film horror ah looga jilo misna lacag badan ay sida ku helaan dabcan wayna dhacday oo film ayaa laga soo sameeyay ma xasuusataa warqadii loo diray reerkii ogolaaday in gurigan ay la qaybsadaan Derek iyo xaaskiisa waxaa soo baxday in warqadaasi uu qoray Derek laftirkiisa wuxuuna ku marmarsiyooday in reerkaasi uu ku dhibanaa aloore marabin in ay la degaan guriga malaha sidaas uu rabay halkaasi warqad uu kaliya ayuu qirtay waraqadihii kale anigu ma ihi ayuu yiri hadeer gurigii reer kale ayaa milkiyadiisa leh oo iibsaday ilaa hadeerna fariimo noocaas oo kale loo soo diray ma jiraan oo si nabdoon ay gurigoodii ku degan yihiin
marka soo lagama yaabo in ay run tahay oo Derek iyo Maria ay iyagu iska camirteen sheekadan. Sheekooyinka noocan oo kale ma ahan mid ay fududahay helida xalkeeda, marar badanna waa wax dhaca oo soo noqnoqda. Haddii aad jeclaan lahayd inaad sheekadan oo kale daawato, ku dhufo muuqaalkan. Ma aha qiso xalkeeda la waayay oo keliya, ee waa dhacdo ku dhawaad 90 sano ay dambibaarayaashu ku wareereen xalkeeda misna ay iska dhaafeen. aad iyo aad ayaad ula dhicin doontaa muuqaalkaasi.